kulanti wacan oo wanaagsan daawadi halkan waa barta YouTube ee barta wararka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal oo diiday natiijada doorashada shalay uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir muran badan ayaa ka dhalatay doorasho shalay ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaasna uu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo guddiga doorashooyinka heer federaal waxay aqoonsadeen 5 kursi ee sidaas oo kale lagu doortay Beledweyne halka tirada ay ka reebeen Hoob Eber 86 kaas oo uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir markale muran ayaa ka dhashay arrimaha dardargelinta doorashooyinka oo si habsami leh ku socday رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ayaa horay dhowr jeer oo hore waxa uu isku dayay sida isoo istaag uu ku sameyn lahaa la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasna uu kaga reebi lahaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka guddiga doorashooyinka heer federaal waxay horay u sheegeen doorashada Fahad ka hor in natiijo waliba ee soo baxday isla markaasna lagu baahiyo dhanka baraha bulshada ee guddiga doorashooyinka heer federaal in marnaba aysan aqoonsan doonin waxayna micno ahaan ku sheegeen in lagala wareegay gacantoodana uusan ku jirin dhammaan aaladaha baraha bulshada ay markaas guddiga doorashooyinka isticmaalayeen waxayna sheegeen kuraasta muranka ka taagan tahay in war-saxaafadeed ay kaga hadli doonaan isla markaasna ay ka soo saarayaan haddaba maxaa ka dhalan kara muranka cusub ee la xiriira arrimaha doorashooyinka uu dib u soo cusboonaaday sidee buu ku aqbali karaa Fahad Yaasiin kursigii aad ku soo baxday waa lagu noqon karaa muxuu kaga bedelaan karaa kursiga sidaas oo kale muranka badan dhaliyay ee uu ku soo baxay taliyaha sida kumeel gaarka ah ugu magacaaban taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Yaasiin Cabdillaahi Faray waynu isla eegi doonaa qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anunaan idin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa si wada jir ah maanta kaga qayb galay xaflad kooban oo lagu soo xiriyo doorashada xubnaha markaasi xildhibaanada gobolada waqooyi oo ku soo gabagabowday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xilli 5 maalin oo kaliya ay ka harsan tahay waqtiga loo qabtay doorashada xildhibaanada golaha shacabka in lagu soo dhameystiro waxa mar kale muuqata in arintaas aysan suurtagali karin guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi waxa ay noqdeen guddiga kaliya ee markaasi soo dhameystira oo doorashada xildhibaanada labada gole inta aan la gaarin waqtigeeda ka hor daawadayaal qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta aynu wada joogna ayaan gorfayn doonaa aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinku soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan ku soo gudbinayno muuqaaladayna sii share garay oo asxaabtaada la wadaag mar kale mahadsanid daawade shalay magaalada Beledweyne ee maamulka gobolka Hiiraan waxaa ku qabsoontay doorasho 6 kursi taas oo markaasi natiijada ka soo bixi karta 6daas kursi si hordhac ah loo sii ogaa hore guddiga doorashooyinka doorashada ku qabsoontay Beledweyne ka hor waxa ay sheegeen in marnaba markaas sidaas oo kale aysan aqoonsan doonin Hoob 86 oo ay hakiyeen natiijada ka soo baxdo waxaa la ogsoonaa Hoob 86 oo uu tartamaya la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in kursigaas uu ku soo bixi karo Fahad Yaasiin ayaana doorashada hordhaca natiijadeeda la sii ogaa shalay kursi ka soo helay Beledweyne guddiga doorashooyinka intaas kadib waxay aqoonsadeen 5 kursi ee shalay lagu doortay Beledweyne waxay ka reebeen kursiga uu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir horay guddiga ayaa waxay sidaas oo kale hakad u geliyeen kursiga uu tartamayo Fahad Yaasiin ra'iisul wasaare Roble oo sidaas oo kale guddiga markaasi gadaal ka riixayo wuxuu dhowr jeer oo hore isku dayay sidoo isoo istaag uu ugu sameyn lahaa in Fahad uu kursi ka soo helay Beledweyne Roble waxa uu sheegay markaa shakhsiga kursiga ku fadhiyay oo ahaa Faarax Sheekh Cabduqaadir in xanuun dalka uu kaga maqan yahay waxa uu na dalbaday ilaa iyo inta uu ka soo laabanayo kursiga in la hakiyo kuraasta kale ee dib laga dooranayo lagu daro
ra-iisul wasaare Roble waa u suurtageli weysay taas. sidaas oo kale ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu isku dayay in safarka Fahad Yaasiin uu isor istaag ku sameeyo taas. sidaas oo kale waa ay suurtageli weysay. guddiga doorashooyinka ayaa dhankooda hakad geliyay kursigaas. Fahad shalay Beledweyne ayuu kursi ka soo helay, waxa uuna ku soo baxay hoob 86 oo natiijadeeda laga sii warhayay. xalay goorsaq dhexa waxaa soo hadlay guddiga doorashooyinka heer federaal, waxa ay sheegeen in aysan aqoonsaneen natiijada hoob 86 oo ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahire. waxay aqoonsadeen 5 kursi ee kale markaa shalay lagu doortay Beledweyne waxay noqonaysaa deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabelle. si habsami leh ayay doorashada kaga bilaabatay. tani waxay ku noqon kartaa utun kale ee mar kale hor istaagto arrimaha dardargelinta doorashooyinka. guddiga doorashada heer federaal ayaa ku gacan saaray natiijada kursiga hoob 86 oo shalay markaas uu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. qoraal ay guddiga soo saareen xalay saq dhexe waxay ku sheegeen natiijada hordhaca ah ee doorashada 5 kursi oo ka mid ah kuraastii shalay lagu qabtay magaalada Beledweyne ee deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabelle, iyaga oo ka reebay hoob 86 oo ahaa kursiga 6aad ee lagu doortay Beledweyne. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID waxba iskama bedelin go'aankii ay ku hakiyeen kursiga hoob 86. sidaas darteed waxba kama jiraan natiijada tallaabadii shalay lagu baalmaray ayaa lagu yiri qoraal ay guddiga soo saareen. 5 kursi ee guddiga sida hordhaca ay u aqoonsadeen ayaa waxaa ka mid ah hoob 15 xiis xasan aadan ayaa ku soo baxday. 2 hoob 8 maxamed deeq xasan cumar ayaa ku soo baxay. hoob 274 maxamed cabdullaahi xasan nuux ayaa ku soo baxay. hoob 109 cabdifataax qaasim maxamuud ayaa ku soo baxay. hoob 74 cabdikariin cumar xuseen ayaa ku soo baxay. go'aanka guddiga ayaa waxa ay ku hakiyeen Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. maha dardargelinta doorashooyinka oo si habsami leh ku socday mar kale ayay hakad geli karaan marka loo eego xilligan sida ay wax u socdaan. go'aanka guddiga haddii aynu waxba iska bedelin waxay Fahad Yaasiin oo xildhibaan noqday magaca markaas Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sidaas oo kale uu noqonayaa in markaas xilligaani guddiga doorashooyinka u diideen in markaas baarlamaanka 11aad uu ka mid noqdo. maamulka Hirshabelle ayaa horay ugu gacan saaray qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal oo lagu hakinaya doorashada kursiga hoob 86 kadibna shalay la qabtay oo markaas Fahad Yaasiin uu ku soo baxay. sidaan oo kale horay muran badan waxa u dhalisay doorasho ku qabsantay Dhuusamareeb oo uu ku soo baxay Yaasiin Cabdullaahi Fari oo markaas ku magacaabnaa si kumeel gaar ah taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Yaasiin Fari kursiga uu ku soo baxay waxa ka dhashay muran badan isla markaasna hakad geliyay arrimaha doorashooyinka muddo bil ku dhow. Yaasiin Fari ayaa ugu dambeyn waxa uu kursigiisa noqday mid la aqoonsaday kadib muran dheer oo sidaas oo kala galay. hase ahaatee waxa uu kaga duwan yahay Fahad Yaasiin Fari ma aysan haysan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sidaas oo kale heer dowlad goboleed intaba. guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed Yaasiin Fari kursigiisa ma aysan ku dhagneyn marka loo eego sida xilligaani ay ugu dhagan yihiin kursiga la taliyaha amniga qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku soo baxay. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir mar kale waxa uu wajahayaa caqabada adag oo markaasi ku aadan in kursigii uu ku soo baxay muran kale uu galo. markana aynu eegno ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidaas oo kale ra-iisul wasaare xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayay kaga qayb galeen xaflad kooban oo loogu dabaaldegayay in markaas doorashada soo gabagabooday ee labada gole ee aqalka sare iyo sidaas oo kale golaha shacabka ee gobolada waqooyi. maamul goboleedka kaliya waxa uu noqonayaa gobolada waqooyi kan kaliya ee markaasi soo dhameystira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilli 5 maalin oo kaliya ay ka harsan tahay waqtigii la qabtay in lagu soo gabagabeeyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. guddiga doorashada gobolada waqooyi waxay ku guuleysteen in markaas ay soo gabagabeeyaan
labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inta aan la gaarin waqtigii lagu madlanaa. muqdisho waxaa ka soconaysa xaflad kooban oo markaasi qayb ka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidaas oo kale ra'iisul wasaare xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xubno kale oo dhowr ah ayaa ka qayb galay xafladaasi. waxaa sidaas oo kale xaadir ah dhammaan xubnihii markaas xildhibaanada ah ee ku soo baxay natiijada. xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ayaa ka kooban 57 xubnood kuwaas oo hadda dooran iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu kaga mahadceliyay guddiga doorashooyinka maantay isla markaasna kadib marka ay soo gabagabeeyeen natiijada doorashada. guddiga maamulka doorashada labada aqal ee gobolada waqooyi ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada iyadoo aan la gaarin waqtigii loo qabtay in lagu dhameystiro doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. guddiga ayaa hirgeliyay in la qabto doorashada 57 xubnood oo ka kooban wadarta labada aqal ee markaasi federaalka Soomaaliya. waana maamulkii iyo sidaas oo kale guddigii ugu horeeyay ee dhameystira arrimaha dardargelinta doorashooyinka xilli wali hakad uu ku jiro dhankaas iyo sidaas oo kale Jubbaland iyo Puntland oo wali aan markaasi shaacin tirada xildhibaanada ay ku harsan, halka maamulada kale ay bilaabeen deegaan doorashada labaad. ilaa iyo haatan haddii aynu eegno tirada xildhibaanada ah ee la doortay inta harsan iyo sidaas oo kale natiijada xildhibaanada ee ku cusub golaha shacabka iyo kuwa laga reebay si wada jir ah, ilaa iyo haatan 162 xildhibaan ayaa la doortay. waxaa harsan 113 kursi. muddada heshiiska waxaa ka dhiman 5 maalmood oo kaliya in lagu soo dhameystiro. maamulka kaliya ee ilaa iyo haatan soo dhameystiray waxa uu noqonayaa guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo ku guuleystay in ay soo dhameystiraan natiijada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilli wali maamulada qaar aysan u dhaqaaqin deegaan doorashada labaad. tirada guud ee xildhibaanada federaalka Soomaaliya waa 275. waxaa la doortay 162 oo markaasi ka dhigan 58.9%. waxaa dhiman 113 xildhibaan oo ka dhigan 41.1%. waxaa ku cusub saaxadda xildhibaanada marka la eego isla markaasna xildhibaanada cusub qayb ka noqonayo 104 xildhibaan. waxaa soo laabtay 58 xildhibaan. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xilligani waxay ku soconaysaa si dardar ah. maamulada qaar ayaa Jubbaland oo kale waxaa ka taagan caqabad dhanka gada ah, hase ahaatee guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay shaaciyeen haddii lagu heshiin waayo natiijada kuraasta 16 gaaraysa ee taalla gobolka Gado in guddiga go'aan uu ka gaaray isla markaasna la dooranayo madaxweynaha iyo sidaas oo kale guddoonka golaha shacabka, kadibna dib loogu soo laabanayo markaas kuraasta 16 gaaraysa ee taalla Gado. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigu ka idlaaday iyo sidaas oo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa u dhaxeeya khilaaf culus oo ku aadan kuraasta 16 gaaraysa ee taalla gobolka Gado. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shalay ayuu kulan gaar ah la qaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxa uu kala hadlay sida loo wajahayo kuraasta 16 ah ee halkaasi gaarayso. waxaa la isku haystaa markii la gaaro doorashada cidda ay u gacan galayso. Axmed Madoobe waxa uu rabaa xubno si gaar ah uu wato kuraasta taalla Gada inay ku soo baxaan, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ka foqi la'yahay 16 kursi ee taalla Garbaharey. waxa uuna qabaa in looga dambeeyo maamulka isaga uu soo dhisay, halka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ku doodayo kuraasta halkaasi taalla in Kismaayo loo soo wareejiyo. waxa uuna sheegay Axmed Madoobe in waajib ay tahay dhammaan kuraasta lagu doorto Kismaayo. deegaan doorashada labaad ayuu diidan yahay. daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socoteen barta wararka waa naga inta. waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay subscribe noo saar gambaleelka furasi mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaga iyo barnaamijyaadka halkaan aan kuugu soo gudbina qaybaha hoose ee commentiga orahdaada noogu reeb. mahadsanid daawade.